بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شعب الصومالي meel kasto joogtaan waa salaamantiin kulanti waan wanaagsan caawito waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin maalmahan socotay oo ku saabsan ninkan oo la yiraahdo Xasan Xanafi oo maalmahan media aad u bumbuunayso dambigiisa iyo maarkana wixii asaga uu geystay iyo dhibaatooyinkii yaani muxuu ahaa oo aad loo hayeysiinaya ayaan u jeedaa oo niman yaani wariyaal ah oo yaani muxuu ahaa idaacad u shaqeeyo oo ninkii yaani muxuu ahaa ka dhigayo wax aan yaani horay loo arkin iyo arrin aan horay qof aanan sameeynin waxaan adduunka laga arkin oo kale Soomaali dad badan baa la dilay ummad badan baa la qumaaday aniga oo idin la hadlayo 9 xabadood baa igu dhuftay waxa igu dhuftay al-shabaab baa igu dhuftay ma garat maantay toon in la dilo kuwii aniga xabad igu dhuftay waxaan ka xigaa inaan cafiyo hayeen ummadda Soomaaliyeed maalin walba dad baa la toogtaa dhalinyaro la toogtaa maalin walba dad baa tiirkaas la geeyaa arrintu waxay tahay waa arrin yaani muxuu ahaa qabaa'ilada yaani muxuu ahaa oo dhibaatada aanan ku badneen oo yaani aanan hubaysneen oo yaani muxuu ahaa dagaal maana Muqdisho in maarkin ku badneen ayaa la gumaada maalin walba kuwa yaani muxuu ahaa maxkamadda yaani sheegtay ciidamada qalabka sida waxay xukumaan dadka loomoyaanka inta badan inkastoo Xasan Xanafi uu yahay nin hawiye ah oo baadi cadda ah ka soo jeed muxuu ahaa beesha Goondhobe oo yaani muxuu ahaa qabiil weyn uu ka dhashay run ahaantii dad fara badan baa xamar gudaheedii aan ognahay oo la sii daayo lacag laga qaatay dad baa la yiri xabsi daa'im baan ku xukunay waxa tusaale soo qaadanaya gabadhii masaakiinta ahayd oo ninkeedan horay loo dilay oo la dhihi jiray liibaan ninkii yarkii wariyaha ahaa gabadhii uu qabay oo la dhihi jiray muxuu ahaa magaceedii muxuu ahaa gabadhii la dhihi jiray magaceed muxuu ahaa gabadhii hindi la dhihi jiray oo ayaan dhaweed gaarigeedii lagu xiray bamka laba nin baa hawsha sayida fulisay labadii nin oo hawsha sayida ku lug lahayd ninkii al-shabaab intuu u tagay bamka ka soo qaaday xamar la yimid xaafadiisa la tagay soo qaaday masaajid la seexday barkaday nin kale u sii dhiibay ku soo xiray bamka gaariga gabadha wadatay ninna waa ku xiray ninna waa ninkii barnaamijka oo dhan soo abaabulay oo keenay buu ahaa kii barnaamijka soo abaabulay qaabkan keenay waa nin abgaal ah ma garat waa nin waceysla ah waa nin familka Xasan Sheekh Maxamuud ah cali gaaf ah ninkaas asiga ah waxaa la yiri xabsi daa'im baa lagu xukumay kii waxaan soo abaabulay oo keenay ma garat ninkii yaani muxuu ahaa ku xiray oo alaabtii loo keenay iska diyaarsanada ku xirayna waxaa la yiri muxuu ahaa adiga waa yaani waa nin ka soo jeed gobolada Baay Boqol sida la sheegay waa nin raxweyn ah waxaa la yiri hala toogto maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa la yiri waxay ku xukuntay dil toogasho ah war Xasan Xanafi waa nin shakhsi ah markii la fiiriyo international law-ga ninka hadda saxaafada isku sheego ninkan daba taagan wax ay ka yaqaanaan international law hata malahan war ninkan dawladda Soomaaliya ma soo qabanin ninka hadda maamulka Xasan Sheekh Maxamuud ee dawlad ku sheega ah ninkan ma soo gacan gelin dawlad oo yaani muxuu ahaa Kenya soo qabatay ninkii dambigiisu waa qirtay nin wuxuu ahaa jaajuus al-shabaab ah jawaasiista al-shabaab ayuu ka mid ahaa ma garat nimankii gacantiis kuma dilin yaani muxuu ahaa ruux oo maantay to anaa gacanteed xabad ugu dhuftay uu yiri oo qiiraalo laga hayb yaraatay malaha ninkii wax buu abaabulay wax buu soo jaajuusay ama dhaqaala rabitaan dhaqaala ha u geyso ama iimaan la'aan ha u geyso ama yaani muxuu ahaa yaani lumitaan oo maskaxiyan iyo aqliyan loo bedelay ha u geyso ninkii dambigii waa galay wuu qirtay ma garat dadkii boqolaalka shakhsi laayay ummadda Soomaaliyeed gumaaday qaar kamid ah madaxweynaha laga dhigay Axmed Madoobe ninkii la yiraahdo
أحمد مدوبة ننكل يرادو هذا يعني محاها مدعوينها جبلة الشرطة يا أو يعني راس كامبوني نمين كان هذا اللي يرادو الله بحي قوته وحوها نين يعني صوبر باري ننكل ليه جري حسن تركي أي صوبر باري 1997 كي أنا أوكي وصله أحمد مدوبة أو يعني محاها أنا أوكي وصل 1997 كي وقت اللي ليه جري دربي بدنتي anigoo Nairobi u socdo baabuur la'aan igu dhacday oo lugeynayo ayaa wadadan waxaan ka baxay Dinsor magaalada Dinsor baan ka baxay waxaan ku sii jeeday ilaa Nairobi Kenya waxay nagu qabteen Ahmed Madoobe iyo ninkan Xasan Turki ciidamo ay wataan meel la yiraahdo Lagdheera meel ay nagu qabteen magana waa markii ay itixaadka ay ka soo jabeen dagaaladii gado markay ka soo jabeen bay ahayd tababar ba meesha sugu furnaa ما قلت وحوها نكاس الصيغة ننكي يعني محوها كو الاتحاد بوها لو حزب الإسلام بالنقضي وكسي بحي ما يكو وحوها اتحاد بوها كاس كامبوني بالنقضي حزب الإسلام بالنقضي وحدي بقولاتي قال الشباب أيو نقضي ننكي الصيغة ودتك أمد إلهي سبحانه وتعالى أبو تلاي rag fara badan gacantiisa ku dilay oo la wada ogsoon yahay oo ummad Soomaaliyeed shacab oo dhan wada magaalooyin fara badan oo marxaatiyeelkii ay taagan yihiin ayaa waxa way madaxweyne way hala daalay ma la toogto asaga ciidamada qalabka sida maxkamadooda ma waxa qabanaysa masaakiinta kaliya inay yani maxkamad soo saaraan inay laayaan masaakiinta kaliya sharci wada qabanaya حسن ظاهر أويس مدحتويد أيها لدجي دنبيل وين هو إلا دقال كي بوصاص الشمبرالي ليش اللي يجري كسر بلاو قدو سيمر سي إلهي حزب الإسلام الشباب الأولت من نفس الجسم مركو وصواع الرئي يعني محوها مقالات على هذا الوصو قبطي إذا ما لسيي استاف بالسيي مال بلد الجي حاسس كيس الله كيني عروب ودلاليا ما قالت إلى هدرتن هدف كي واكبها إلى جماعي معناها برجد البكرة شيء لما تقول كرو ما قرت وحرب أمود الصوماليين المشاجو وحرب أمود الصوماليين المشاجو أرنت سيريو صوا أنا وحنكون باغية كحزبيهان حزبي جدا جودي دريال الشعب حكومة باغية واحد ديلي كرتان واد الشين ودن كان وادكو فشلنتين دولة كشاك حسن الشيخ محمود يمام الكيسي أمان كدالك وادكو فشلنتين عيب أيا بوغاغي وحاكو بحسمي عيب تأدونك أيا كوغاشي سببتو عيب أبو رونتا إلهي وانتا قوري مالها مسكح إيو أغلي على إسان مالها nimanka sheeganay muxuu ahaa maxkamad baan joognay ilaa qalabka sida niman diin yaqaan ma aan wax diin ah oo ay leeyihiin ilaahay uu tabuuray malaha waxa kale waa askar xun oo la soo ururiyay oo askartii xaq ahayd ma waa wiil yar oo dhalinyaro ah ninka daxweyno u jeeday uu leeyahay ninkan hala toogto maxkamadda toogisha ku xukuntay yaa war ninkan dambigiis waa qirtay waxaana soo gudbisay dawladda Kenya waxaan ku baaqayaa oo si adag aan rabaa inaan u sheego markin muxuu ahaa aan u sheego ummadda Soomaaliyeed war ninkan yaan la tooginine ninkan xabsi hala geeyo xabsigaas ha ku xirnaado ilaa wadankan dawlad uu ka helo dawlad cadaalad ah markii la helo kiiskan cadeyso dad baarista yani muxuu ahaa yaqaano war ruux koonto lagu gubay oo tuur yar ninka la yiraahdo oo daalimka ah dad يعني محوها كورنتي لو غبي او يعني عم دروغو لا سيي wax يعني محوها ماندوري مسكada looga xareeyay wax walba la qirsiinayo wax wanaagsan maahan ma garad wax wanaagsan oo hawa yaraatay maahan bilaa calaykum ummadda Soomaaliyeed lagu maadin dadkan banaanka laga maro maalin walba 5 iyo 6 baa la toogtaa 5 iyo 6 waa la sii daayaa qabiil baa lagu sii daayaa warheede war hala joojiyo masaakiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka abuurtay ninkan dambigiis waa qirtay wuu sheegay
إنه جاجوس هذا عدستي والصح ما قرت لكن سيلقوا تحتاجنه إن كان حبسي هلقوا حلو ده كان دولة بويمانس إن شاء الله تعالى مركي حكم عدالة الله هلو قبيل ودنك وكذا معلوم مركز كذب بنين كان لقوا أوفين كلا حكي أولها نمك ورياش وحنو شيء بونبونين تاني من كان بنتي مصور غنايا من كان واد انت ويا وأول ماتي ما قرت من كان نول هذا الكيس مال ما مد كان عبد العزيز أفريقي اللي لا ويا وحنرك أو مالين والبي يعني محوها ويعني بونبوني يعني محوها هذا الذي يعني هذا القوة وضو مكون فرح سنتها يدلك يعني ترشد له وحكمه وروحاس وحقف بنادم أقوى الله معه ما قرت وأنا إذا بدره إلى دويديسي ديوس بانتهاي والضمير لا وقع ما قرت آخر كان والو توغنايا sababtoo adiga jaajuus ah shabaab bad la shaqeysa abda South Africa ninka leeyahay ma garat ana kan cadeynayna waan ognahay wax walba ya mujtamac wada Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa ninkaas xildhibaanada gugundhabaha meesha ku jiro ama baadacadaha ha u tagan Xasan Sheekh Maxamuud ninkan kiiskiis dib loo dhigo ilaa ma dawlad cadaalad laga helo Xasan Sheekh Maxamuud waa qabiil wuxuu sii daayay hindi gabadhii la dhihi jiray oo la qarxiyay ninkii qarax keenay uu sii daayay xabsi daayim buu yiri afis madaxweyne raba inuu ku sii daayo intuu hadda xukun ka tagin ko xabsi daayim buu ku xukumay wax jirana maaha waa been la soo dhoobay ma garat habeenii maalin baa la islaaya umad fara badan baa la laayay wariyeesha rag ka qiimo badan baa la laayay saraakiisha hay'adaha gargaar ku shaqeyn jiray baa la laayay aniga ay la hadlay sagaal xabood baa lagu dhuftay laakiin midkii aniga xabood igu dhuftay maanta waxaan ugu cudur daarayaa jaahilnimo iyo cawaanimo inay u geysay maskax la bedelay ya حواي ومضيا لقمادين دلك وحن دلك دب بوباهين دتكم دل بوباهين دلكنا الدفاع بوباهين يعني دلنا يرد شباب كأو دلنا يرد دأذية يعني لقمادين والسلام عليكم ورحمة الله. لم دقيقة ودوسة به بيش مسيس بقول أنا دقيقة. تمارين شو دقيقة أطابع.